السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قاليga soo dhawaada waxaan mowduuceena uga hadlaynaa infekshanka ku dhaca xubnaha taranka ee dumarka haddaba maxaa keena xanuunkan maxaase lagu daweeyaa sideena looga hortagaa intaba aan ku dhamaysano muuqaalkeena waa caabuq ku dhaca xubnaha taranka ee dumarka wuxuu saameeyaa farjiga tubooyinka minka iyo ogxansidayaasha haddii aan la daweynin wuxuu keenaa madhalaysnimo iyo inay howlgabaan xubnaha aan soo sheegnay xanuunkan waa cudur caan ka ah dunida oo dhan inkastoo lagu kala badan yahay waana xanuun sababa madhalaysnimo haddana laga hortagi karo wuxuuna infekshanka aada ugu badan yahay gabdhaha qaangaarka ah iyo haweenka da-da yar haddaba maxaa keena caabuqa xubnaha taranka ku dhaca sida eebba ugu talagalay waxay xubnaha taranka dumarka ay leeyihiin waxyaabo ka hortagi karo infekshanka oo qof caafimaad qaba uusan ku dhici karin ilaa in qofka uu la yimaado dhibaato difaaca hoos u dhigaysa ama ku caawinaysa in bakteeriyada ay taranto ama dhaawac gaarsiiyo afka minka taasoo keenayso in bakteeriyada gudaha u gudubto waxyaabaha ugu badan ee dunida keenay xanuunkan waxaa ka mid ah cudurrada galmada la isugu gaarsiiyo sida jabtada xanuunka kalaameydiyaha HIV-ga isfiilitada iyo herbiska sababta ugu badan ee dumarkeena u keento way ka duwan tahay intii aan kor kusoo sheegnay waxaa u keeno cudur uu keeno jeermiska fangaska oo loo yaqaano cabeebka galo farjiga iyo agagaarkiisa caabuqa cabeebka keeno ee farjiga galo waa cudur fangas ah wuxuuna ka dhashaa meelaha diiran oo qoyaanka leh sida farjiga afka cagaha qaasatan faraha dhexdooda waxaana uu ka dhashaa nadaafad darrada iyo hawayarida calaamadaha u gaarka ah ee lagu garto xanuunkan waxaa ka mid ah in haweeneydu ay dareento qoyaan ama dheecaan xagga hoose ka yimaada kaasoo midabkiisa uu yahay sida caanaha labeentooda oo kale waana dheecaan ur badan leh oo farjiga agagaarkiisa ilaa bowdaha laga dareemi karo wuxuu wataa cuncun dhabar xanuun murqa xanuun lugaha iyo caajiska lagoosyada gala qaas ahaan jilbaha waa xanuun si tartiib ah u tarmo oo qofka inuu ka sheegto waxay ku qaadataa dhowr bilood sidaa awgeed haweenku waxay badanaa dhakhtarka u yimaadaan iyagoo 6 ilaa 8 bilood ka cabanayo ciladani ama xanuunkani caabuqa cabeebka wuu soo noqnoqon karaa haddii aanan la daweynin haddii aan u gudubno sababta u gaarka ah ee haweenkeena Soomaaliyeed waxay tahay sida ay dhakhaatiirtu badani sheegeen in haweenkeena badankooda ay si joogto ah u xirtaan gorgoradaha waxay marada gorgorada ka samaysan tahay maado nayloonka ah taasoo soo jiidata kuleylka iyo huurka waxayna abuurtaa dhidid fara badan hawadana kama gudubto waana saddexda shay ee ugu badan yahay jeermiska fangaska ah caabuqan keeno oo loo yaqaano candidia inuu tarmo haweenka aanan xiran gorgoradaha way ku yartahay xanuunkan caabuqa ee fangaska keeno haddaba ha joogtaynin xirashada gorgorada inkastoo aanan garanaynin ummado kale oo ku labisato gorgoradaha laakiin caafimaad darradeeda waa mid muuqata laguna caddeeyay dhowr cilmi baaris iyadoo lagu fiiriyey xiriirka ka dhexayn karo xirashada dharka nayloonka ka samaysan iyo caabuqa cabeebka nylon underwear and yeast infection nasiib xumo haween yar ayaa ku baraarugsan arrintan waxaa jira haween fara badan oo ka caban jiray infekshankan kusoo laalaabtay iyagoo si joogto ah u xiran jiray gorgoradaha kadibna isbeddel fiican dareemay markii ay joojiyeen xirashada gorgoradaha haddii ay kugu adag tahay in aad gorgorada dhigtid ku dadaal in aadan joogtaynin xirashadeeda khaasatan haddii aad ku nooshahay dhulalka kulaylaha ah haddaba maxay tahay calaamadaha kale ee lagu garan karo caabuqan waxaa lagu garan karaa caabuqan xanuun qaybta hoose ee wareegga ah kaadida oo ku gubta qandho qarqaryo wadata iyo xanuun xilliga galmada ah dad badan waxay isku qaldaan caabuqa kaadi mareenka iyo caabuqa ku dhaca xubnaha taranka haddaba caabuqa kaadi mareenka waa mid ku dhaco kaadi haysta iyo kilyaha balse calaamadaha way isku yara dhow yihiin sidee loo baaraa xanuunkan dad badan ayaa aaminsan in xanuunkan kaadida lagu ogaado caabuqan xubnaha taranka galo waxaa lagu ogaadaa in dheecaanka ama dhiigga la baaro iyadoo la raadinayo jeermiska keenay xanuunka ama la saaro qalabka ultrasound si loo ogaado caabuqa dhaawaca uu gaarsiiyey xubnaha taranka sida tubooyinka iyo ogxansidayaasha sidee lagu daweeyaa xanuunkan
waxaa lagu daweeyaa dhowr daawo oo antibiyootig ah iyo daawo fangaaska loogu talagalay, ha ahaato mid la cunayo ama mid la marsanayo ama sunboosto mid loo isticmaalayo. Waa qasab in lamaanahaaga aad daaweyso haddii laga helo caabuqan. Hadduu xanuunkan siyaado uu noqdo sida dheecaan ku aruura tubooyinka, waa in qalliin lagugu sameeyaa si looga fogaado in tubooyinka ay xirmaan, sababtoo ah waxay keeni kartaa madhalaysnimo. Waxaan gudagelaynaa sida looga hortagi karo xanuunkan. Xanuunkan waxaa looga hortagi karaa adigoo raaca tillaabooyinka aan kuu sheegi doono. Haddaba jooji isticmaalka gorgorada, ku dadaal nadaafadda guud oo iska ilaali wax kasta oo caabuq kordhin kara, qaas ahaan xilliga caadada. Haddii aad leedahay xanuun ka mid ah xanuunada galmada lagu kala qaado, iska daweey lamaanahaagan ka daweey. Haddii aad doonayso in aad xakamayso uurkaaga ama aad ka hortagto ilmaha, iska ilaali isticmaalka qalabka lagu xiro tubooyinka, maxaa yeelay wuxuu keenaa caabuq haddii aanan si nadiif ah loo xirin. Ka fogow isticmaalka daawooyinka qallajiyayaasha aan dhakhtarka kuu qorin. Haddaba haddii aad ka heshay muuqaalka, la wadaag asxaabtaada si ay uga hortagaan xanuunkani.